dhiganahan oo loogu magac daray wax ka ogow Soomaaliya oo xambaarsan qayb muhiim ah oo kamid ah sooyaalka taariikheed ee dalkeena ayaa lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho gaar ahaan jaamacadda Daarul Xigma oo ku taala degmada Hodan. dhiganahan waxaa qalinka u qaatay qoraaga da'da yar ee lagu magacaabo Ayuub Maxamed Cumar. goobta lagu soo bandhigay waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin iyo marti sharaf oo u badnaa qorayaal da'yar ah. ugu horeyntii halkaasi waxaa ka hadlay Cabbaas oo ah dhiirigeliyay waxaana bogaadiyay qoraaga buugan iyo sida uu u xushay taariikhda ku dhex jirta buugan. marka waxaan leeyahay Ayuub halkan wanaagsan ee ka bilowday ee ah ogaalka dalkaaga inaad ka bilowdo qoraalkaaga waxaan rajeynayaa inuu noqdo mid si hana qaada oo marka ugu dambeeyana aad wax ka qori doontid wax ka ogow adduunka ama wax ka ogow dunida oo cilmi badan aad ku soo biirin doontid dhiganaha qoraal iyo taariikhda Soomaaliya aad iyo aad aan ugu dhiirinayaa. sidoo kale dhalinyarada halkan joogtana waxaan kula dardaarmayaa buugan inay qaataan oo ay akhristaan oo yaani cilmiga ku jira ay dhuuxaan isla markaasna ayagana wixii aragtidooda ah ay dib ugu soo celiyaan qoraaga buugan qoray. bulshada Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa inay tahay bulsho aan waxba akhrin balse wax daawata. taasi waxaa meesha ka saaraya qorayaal da'yar ah oo qora buugag oo ay ku soo bandhigaan sheekooyin maad ah, qosol iyo taariikh ah sida Ayuub Maxamed Cumar oo kale. Cumar Cabdiraxmaan Yuusuf oo ah maamulaha iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Macruuf oo ah iskuulkii uu ka baxay qoraaga buugan ayaa isna ka sheekeeyay sida uu Ayuub u danayn jiray taariikhda dalka. taariiqaadka xaggooda wuxuu ahaa ardayga loogu yeero ee aan looga daba tagin. marka hadduu wax ka ogow Soomaaliya qoray waxaan isleeyahay hibadii ka muuqatay ayaa ka soo daahirtay oo ahayd inuu taariikh badan hayo. waxaan xasuustaa hadda kahor asagoo noo tartamay yaa la yidhi niyahow waxaad wadataa arday aan iskuulkaaga dhigano rag macallimiinahoo mindhaa jaamacadaha iyo raggaas ahaad wadataa. markaasaa ayaa waaya salay ninka la yidhaha Ayuub oo ku tartamay waxay dhaheen wixiisu taariikh waa dhaafeen. saad usoo gasheen tartanka ilaa hadda waxa waaye taariikhda oo inta badan marka la tartamayo marka iskuullada dhibaatada ay qabaan taariikhda dalku waa ka fakataa oo meelaha ay ku kala haraanba marka iskuullada kala reebayo Soomaaliya lala aadaa waa go'aan marka waxay dhaheen wixiinu suuragal maaha. ninkan waxay dhaheen waa macallin taariikh ilaa ay nala gaartay inaan wasaaradda waxbarashada IDgeed inta ka keenna aan dhahno waa kana ardaygan IDgiis. Caashe Maxamed Cumar oo la dhalatay qoraaga buugan oo ay u helinayso habaryarteed ayaa hadiyad wada jira waxay guddoonsiiyeen Ayuub si ay u dhiirigeliyaan. ugu dambeyn Ayuub Maxamed Cumar ayaa ka sheekeeyay dhibaatooyinkii uu maray buugan iyo macluumaadka ku jira buugan. haddii aan xisaabiyo maalinta aan bilaabay ilaa ay maalintu ay dhamaanayay markii la isku soo daro waxay noqonaysaa 7 bilood. buug Soomaaliya markaa ka qorayso dalkaada wuxuu u baahan yahay feejignaan. marka buug sheeko ah qorayso kaliya waxay u baahan tahay inaad maskaxdaada aad dejiso kadibna sheekada si qiiro leh aad uga sheekayso. laakiin marka dalkaada wax ka qorayso waxaa laga yaabaa buuggaas qof cadaan ah inuu akhristay. sidaa darteed sida walba aad qorto sadarka ka dambeeya waa inaad il gaar aad ku lahaataa qoritaankeeda. waqti dheer ayuu dalku aad u dhisnaa amnigiisuna aad u fiicnaa ilaa markii dambe dagaalkii 77 aynu la galnay xabashida iyo dalka Itoobiya. dagaalkaane waa xaqiiqa in Soomaalidu wajigii koowaad ay ku guuleysatay laakiin markii soo galeen ciidamadii quwadda Ruushka iyo Kuuba iyo Liibiya iyo wadamada kale ayaa Soomaali laga badiyay oo laga adkaaday. buuggan wax ka ogow Soomaaliya xogahaas iyo intaa ka badan ayaa ku duugan. waxaan aaminsanahay qof walba oo akhrista inuu wax badan oo badan dalkiisa ku ogaan doono.